dhismaha weyn ee masjid jaamaca degmada Woodward oo in muddo ka socday gudaha magaalada Woodward ayaa haatan waxa uu galay xaalad xasaasi ah iyadoo guud ahaanba uu istaagay shaqadii ka socotay dhismahaasi ka bacdi markii ay go'ay dhaqaalihii lagu dhisayay masaajidkaasi gudiga masaajidka culimaa oo diinka odayaasha guud ahaanba bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen dhismaha masjid jaamaca degmada Woodward waxa ay baaq u direen dhammaan walaalaha muslimiinta iyagoo ugu baaqay markaasi in laga soo qayb qaato dhismahaasi sidii loo dhameystiri lahaa oo imika maraya shubki sare isla markaana ay tilmaameen wax lacag ah in markaasi ay yar tahay oo loo hayo isla markaana lacagta imika u hadhay ay tahay mid aad u fara badan waa kuwan qaybihii kala duwanaa ee bulshada halkaasi iskugu yimi masaajidka hadda waxa lagu wadaa oo dhamaad ku jira in lagu dhameystiro oogadiisii oo hadda waxa ku socota birtii baa ku socota shubka lagu xidhayay waana arki doontaan insha Allah taala sawirkaad hadda xaaliga masaajidkii dhaqaalihiisii waa taagan yahay kaasada masaajidku kaasuu leeyahay sanadda masaajidka hadda waxaa ku jira 1770 taqriiban maanta masaajidku wuxuu u baahan yahay oran karaa $70,000 buu u baahan yahay taqriiban runtiina lacagta gashayna hore u gashayna waa lacag badan waxaana suulo geliyay inay la baxaan dad muxsiniina leenahay masaajidkii waa taagan yahay dhaqaale ayuu u baahan yahay waxaa laga doonayaa qof kasta oo muslina meel kasta naga maqlaayo masaajidku maanta runtii wuxuu marayaa meel aad iyo aad runtii xaaladdeedu adag tahay oo hawshii bartii ugu bandeed buu marayaa birtii baa ku socota تقريبا سيبرك شميتها كلي وحول بهاي لا 800 حبة شميتها بهاي برتوي بدنتها هاي خرج قلي آد بهاي وحان ضدك رنتي ولا راهي ومسلمين تا أنا كعصا إن قف ولا وحول وكسر جيسن كريم وكسر جيستي لا سبحانه وتعالى بيت كيسا وكسر درصله وان كعصا إن جارهان ضدك أول شيء مدغدا يديان كان أول شيء ورنتي ضد خير صباحيا العقنا صباحيين أنت تربحين تودي رنتي أنا مرة وأنا قاعدين haddana waxaan leenahay wardadka kale runtii wali aan waxaan ka hayno ilaahay subhanahu wa ta'ala beedkiisa oo deegaankii laga dhisay oo aad arkaysaa masaajidka oo dabaqa oo aad yaad u weyn wax ku soo darsada islaamkii meel kasta ay joogaan miyi iyo magaalo iyo dibad awalba ninkii ilaahay wax ku darsanaya beedkiisa awalba wuxuu soo caawin jiray inuu soo caawiyo ama horta ka codsanayna ummadda Soomaaliyeed ee islaamka horta ilaahay jannada firdawsaas cidii ka qayb qaatay masaajidka ducadaas way helayaan waa wax u horumaray weey Soomaalidu waxay taada madal la marxaati dhigo masaajidna dhagax dhigo si kastaba ahaatee waxa laga sugaaba dhammaan walaalaha muslimiinta ayaa ah in ay markaasi si degdeg ah uga soo jawaabaan dhismaha masjidkaasi gaar ahaan iyadoo baaq degdeg ah loo diray qurba joogta deegaankaasi Cabdi Ciro Soomsa TV degmada Woodward